السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وولالكين محمد شيخ زياد يتشانل كاد وقبرتين محاضروين قصوين تربية عرورته كبعنت بني آدمك إيوه مواضيع ذا هرتمينتا أوله أمدنا صومالية دا مسلمك ولا ليال ما أنت وحاندين ولا موضوع هذه مهم وأن جعلها هدي أي ندقيسنو دوحنو كدقنو نولشان أي هجاجسو وحاني بوين كدون إننا كهلينو marka walaalayaal fideogan aan fiirsanno aan wada dhamaysanno bilow ilaa dhammaad walaaladana aan gaarsiino fariintan waa ammaano na wada saaran in dadka walaalaheena aan maaragtay khayrka gaarsiino oo aan isfarno xumaatadana iska reebno mawduuca maanta walaalayaal wuxuu ku saabsan yahay waxa la yidhaahdaa asbaab alhidaaya asbaabta hanuunka sababtoo ah waxa iska yimaada ma jiraan wax walba waxay u baahan yihiin juhdi iyo dadaal hanuunku wuxuu u baahan yahay dadaal in ilaahay uu waddadiisa toosan as-siraat al-mustaqiim ilaahay uu nagu toosiyo waa hadaf qof walba muslima uu raadinayo ahmiyaddeeda daraaddeed ama hadafkaas ahmiyaddiisa daraaddiis ayaa abweyne wuxuu jideeyey rakcad walba oo salaada ka mid ah inaynu weydiisanno hanuun hidaayadu waxay leedahay walaalayaal asbaab abweyne uu kitaabkiisa qur-aanka ku caddeeyey rasuulka salawaatu rabbi wasalaamuhu calayna uu sheegay sunnadiisa uu ku sheegay qaar ka mid ahna aan halkan ku tilmaami doono maanta asbaabtaas waxaa ugu horreeya walaalayaal sacatu sadr laabta qofka muslimka inay u waasacnimo noqoto islaamka iyo sharaa'icdiisa iyo tacaaliimtiisa saa daraaddeed abweyne wuxuu leeyahay faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam waman yurid an yudillahu yajcal sadrahu dayiqan xaraja abweyne qofkuu doona inuu hanuuniyo laabtiisa iyo islaamka uu sharxaa oo u waasiciyaa kalena maaragtay uusan doonaynin hanuun la doonaynin oo baadi la doonaynin abweyne ciriir ayuu laabtiisa ka dhigaa waxa ugu weyne marka ka caawinayo maaragtay inuu ilaahay uu maaragtay laabtaada islaamka uu sharxo waa tawxiid iyo kaliyeelidda abweyne taasoo aysan ku dhex jirin shaki iyo shirki sababtoo ah shirkigu waa asbaabta ugu waaweyn ee keenta laabta qofka oo ciriiri noqoto walaalayaal nabiga salawaatu rabbi wasalaamu calayh waxaa la weydiiyey ayu lmu'miniina akyas mu'miniinta keebaha ugu caqli badan markaasaa wuxuu yidhi akharuhum lilmowti dikraa wa axsanuhum lahu isticdaada ulaa'ika alakyas waa kuwa maaragtay ugu sheegidda badan geerida sidoo kale ugu diyaar garoobidda wanaagsan kuwaas waa kuwa caqliga badan walaale aayaddan ayaa la weydiiyey faman yurid illaahu an yahdiyahu yashrax sadrahu lilislaam abweyne qofkuu doono inuu hanuuniyo laabtiisa ay u sharxaa ayaa nabiga la weydiiyey oo sharxaas muxuu yahay nabigu wuxuu nuurun yuqdafu bihi fi lqalb fayanfasixu lahu lqalb waa nuur qalbiga lagu tuuro oo laabtu ay la waasacnimo noqoto waxay ku yidhaahdeen rasuulka ilaahi fahal lidalika min amaaratin yucrafu biha arrinkaasu ma leeyahay calaamada ama astaan lagu garto markaasaa maaragtay nabigu wuxuu yidhi nacam waxay yidhaahdeen famaa hiya calaamadaasu maxay tahay markaasaa nabigu wuxuu ka yidhi alinaabatu ila daari alkhuluud waltajaafi can daari alguruur walisticdaadu lilmowti qabla liqaa'i almowt waa qofka inuu maaragtay mar walba uu niyaddu ku haya oo uu maaragtay daari alkhuluud yacni waa daartii lagu waaraayay oo aakhare ah inuu qofka marka mar walba maaragtay ilaahay ka baryo oo uu ilaahay u laabto oo uu toobad keeno oo uu maaragtay saaxiib la noqdo sidoo kale inuu ka fogaado daar alghuruur oo ah maaragtay daartii dadka kadinaysay sidoo kale inuu diyaar garoobo geerida inta uusan geerida la kulmin asbaabta hidaayada walaalayaal way fara badan tahay waxaa ka mid ah استدامة ذكر الله تعالى قفك إنه دائما يبين حسكيس سببته
حسك إلهي قفك مارة قلبي سوحا وكدق عمد إلهي كحرا مركاسو كدق عمد حسلون وغلابتي سو مركاسي مارة تعمد واسعة بينوح لي ألا بذكر الله تطمئن القلوب إلهي ذكر جيسا أي قلوب تكوحس الشعب قفك إلهي حسوه إلهي با حسا سينا سيدا سيكوين بينو حسا وبينوح لي فاذكروني أذكركم يحسا عن إذن حسن مرقولا ليال أسباب الهداية وحكم إذا كتاب القرآن قول آخرية وليبت ست تدبر وقفك كو خشوع عايو إساقو وليبت القرآن قول آخرية كم تهاي ذكرك النوعية ديسا هذا ولا سيقو نيالي أهمية ديسا ومالتين لدنايو وإن هذا الله دنايو للربو بنو علي إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم قرآن كان dadka wuxuu ku hanuuniyaa oo ku toosiyaa wadada mid toosan وارمها الدنيا مد آخرة sidoo kale boono wuxuu leeyahay waa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa quraanka soo dejinaa isagoo maaragtay wax kale aan ahayn oo caafimaad ah oo naxariista muuminiinta walaalayaal asbaab alhidaaya waxaa ka mid ah walaalayaal التفكر في مخلوقات الله qofka inuu ku fakaro abuurka ilaahay makhluuqaadka ilaahay وسمضى يجو سماوات كا يدلولك قفكي كوتا أمولنا وحوم مارته يعني وصل لابطار الرحلة تأمل كدبدت سوق يبغون الرومي وخشوعا ويبغون وخضوعي هنوم في سنقاتي يبغون وحوليه هاي بعد ذكر 10 آيات من آياته الكونية ثم آيات واوين وآيات كيس كونية كما ذكروا شيء إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب samaawaadka abuuritaankooda iyo dhulalka iyo sidoo kale maalinkii iyo habeenkaas dabamarkooda waxaa ku sugan calaamado waaweyn waxayna ugu sugan yihiin kuwa qulubta wax weeleynaysa leh alladina yadkuruuna allaha qiyaaman wa qucuuda waa kuwa eebweyne xusa iyagoo taagtaagan iyagoo fafadhiya wa calaa junuubihim iyagoo dhinac u jifa wayatafakkaruuna fi khalqi asamaawaati waalard samaawaadka abuuritaankooday ku fakaraan iyo dhulalka ربنا ما خلقت هذا باطلا ووعير هذا الإله وحن دلدل وماذا أبورنه فقنا عذاب النار عذاب النار إلى ونقبض بعده مركا ماشان إله وحكو شيء فكر بكو شيء فكري أنا ومحوكه مريء ذكري إله مركا علماء وعير هذين الفكر ذكر والذكر عبادة وقف كأنه التفكر في مخلوقات الله إنه كفكروا ذكري كنا وعباده يعني أسباب هدايته waxaa kamid ah walaalayaal rifqatu الصالحين والأخيار dadka wanaagsan ee akhyaarteena qofka la saaxiibo marka in badan oo dad maartay baadi ku jira ayuu abooyna ku soo hanuuniyay dadka wanaagsan oo la fariisanay sababta qofka wuxuu ku dul sugan yahay diinta qofka saaxiibkiisa ah nabigana wuxuu leeyahay sallallahu alayhi wasallam almaru ala diini khaliilihi qofka wuxuu ku dul sugan yahay saaxiib hoosaadkiisa diintiisa falyanzur ahadukum man yukhalil iskaaga midkiin qofka oo la saaxiibayo مارتي وحنا شايفين نبقى سامعين قفك ولا فريست وكل حديث الجليس الصالح والجليس السوء لفرق وناكسن يلا فرق وحن سيدو كلا ولا ليال القيامة حتى واحد كلا يسكت مارت منه وكبت بعدين منه ولا جاي يبونوا عليها الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين تذكر ولا لها ها قاركوت قارك كلا عدو بيقول ما نقيامه لكن كوي مارتي لك عبسنا ويعني واحد كلا مارت واكو داين صاحب بدي ولا الله دي تدكي سود واردن تدكي متقين تامو وحي كلا دون وكلا عنا مارت واكو داين أسباب تهدايته waxaa kamid ah sababka ugu dambeeya ugu muhiimsan lixda sabab maanta aan sheegayno walaalayaal waa ducada weeyaan sababtoo ducadu waa maalatay hubka qofka muuminka ee markuu dhibaatada ku jiro uu isticmaalayo marka asbaabta hidaayada maalatay wax alla wixii kamid ah aad la imaato shantii hore aan soo sheegnay waxaa loo baahan inaad weydiisato tawfiiqda iyo inaad mar walbo yani ilaahay maaratay barido oo tawfiiq weydiisato eebana wuxuu leeyahay qaala rabbukum udcuunii astajib lakum rabbigiin wuxuu yidhi barya aan idin ajiibe in aladiina yastakbiruuna can cibaadatii sayadkhuluuna jahannama daakhiriin kuwa cibaadadayda iska weynaysiiya jahannama ay galeen ayagoo dulaysan oo maaratay yani aada u dulaysan wayaan حديث القدسنا وعكوسنا يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته أدوما دي ودمانتين وحاتين كوبا ديوبي إلا عدن هنونية ويانا إهانون كي قبر يعان إدين هنونية
نبينا صلى الله عليه وسلم هبينكي مركو مارتي سلادي سفرفرنا يحكو فرفرن جري اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. إلهي وحيري رب جبرائيل ربك جبريل ميكائيل إسرافيل سماوات يدور كابوريتان كوذا متك بالله وعد قريسي جرين أمارتي متك أوك وحا قرصون وحا مغضى أذيك يا كلا كنت دومد هذا وحا يسكو خلاف سنين يقول هنوني وحا لسو خلافه وحق أذيك يا هنوني سعيد الدون دوحان كانوا نساء مارت الصراط المستقيم وضد توصن مرجعنا لروا إن الله برينه وكود ذالنه على وجه الخصوص في أوقات الإجابة هل هذا وقت مارت إجابة مارت الرجينا ولو رجل وياي إنه قفك كود ذاله لا يوعن كبريا إنه مارتنا هنوني دمانتن ودديس مستقيم كان هو هنونيه ونا نقصه مارتي وضد سيتو يدين تتوصن أسرع يا ابونا أرنكا كره